Guddiga doorashooyinka ee dowlad-deegaanka Soomaalida ayaa maanta xukuumadda dowlad-deegaanku waxay ku wareejisay 34 gaari oo loogu talagalay inay ku shaqeeyaan guddiga doorashooyinka ee ka howlgelaya aagaga doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan. Gaadiidkan ayaa ah mid loogu talagalay inay ku howlgalaan xubnaha guddiga doorashooyinka ee ka howlgelaya goobaha lagu wado in doorashooyinka lagu qabto, sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dowlad-deegaanka Soomaalida. baabuurtan waxay yihiin baabuurtii doorashadan ku fulin lahayn xukuumadda deegaanka nagu wareejisay, waxayna ka kooban yihiin 34 baabuur. 23 waxaa loogu talagalay ag doorashooyinka deegaanka oo 23 ka kooban. 11 waxaa loogu talagalay isku dubarriyaasha gobolada. Marka dabcan goobaha aad geynaysaan aad u kala direysaan waqtiga aad qorsheynaysaan. Waqti sida uu dhaqsaha badan qayb galabtaaban diranaa inta kale bari aruurta hadii la yiraahdo. Waxay u adeegayaan kooxaha fulinaya doorashada. Muddada doorashada socday diiwaangelinta musharaxiinta, diiwaangelinta codbixiyaasha ilaa inta codka la bixinayo. Dhinaca kale, xafiiska madaxweynaha ee dowlad-deegaanka Soomaalida ayaa qaybihii u dambeeyay gawaaridii dhowaan dowladdu ku wareejisay gobolada iyo qaybo ka mid ah xafiisyada dowladda ku wareejiyay qaybo ka mid ah xafiisyada dowladda sida xafiiska waxbarashada, maxkamadda guud iyo xafiiska hantidhowrka guud ee dowlad-deegaanka. Wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dowlad-deegaanka Soomaalida Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in gaadiidkan ay wax weyn ka tiri doonaan dhinaca adeeg bixinta. maanta oo aan ku wareejinaynay qaybtii ugu dambeysay 150 gaadiid ee xukuumaddu u soo iibisay xafiisyada kala duwan ee heer deegaan, gobolada iyo hay'adaha amniga ee kala duwan ayaan 20 gaari ugu dambeysay maanta ku wareejinay xafiisyada heer deegaan oo ay ku jiraan maxkamadda guud iyo xafiiska baarlamaanka, auditorka, xafiiska waxbarashada iyo xafiisyo kale oo la mid ah oo aan aaminsanahay in ay gaab weyn ka jirtay xagga gaadiidka. Marka waxaa farxad weyn loo ah in aan xilligan aan gaadiidkii ku wareejino xukuumad ahaan shaqooyinkii ay wadeen ay wax weyn ka tari doonto haddii la yiraahdo. Inta badan dadku sida waxay isweydiiyaan gaadhigan intan oo gaadhi ah xukuumaddu qaabkay ay ku soo iibisay. taa jawaabteedu waa wax dhib yar maadaama oo gaadiidka marka banaanka laga soo iibsanayo yani qandaraas inta lagu bixiyo qaab noocaas loo soo iibsanayo ala gaadhigan oo kale 6 milyan ilaa 7 milyan baa ku baxa. Hadda laakiin markuu sidan oo kale canshuur dhaafka uu ku soo galo shirkad weyn oo Moenco la yiraahdo oo shirkadda Ethiopia xagga gaadiidka ugu qaabilsanay yani gaadiid soo dejisa ayaan ka iibsanay, taasna discount bay lahayd. Marka dadaal ay xukuumaddu sameysay ilaa lacagta adag helitaankii shirkadda la siinayay in ay yani warqad uu madaxweynuhu qoray oo laga codsanayo in laga caawiyo isla markaana wasaaradda maaliyadda ee federaalka canshuur dhaafka ay noo saashay ayaa waxay noo suura gashay inaan lacag yar oo kooban gawaadhi aad u tiro badan aan ku soo iibsano. Xafiisyadii lagu wareejiyay gaadiidkan ayaa si weyn u soo dhaweeyay gaadiidkan lagu wareejiyay, waxayna xuseen inay baahi weyn u qabeen. baahida maxkamadaha waxa weeyeen ay ka qabanayaan. maxkamadaheenu waa 93 degmo, 12 maxkamad goboleed, 6 maamul magaalo oo deegaankeena ballaaran ku kala dhex yaala. marka kormeerkii lagu sameeyay maxkamadahaas oo maxkamad kasta loogu tagi jiray meesheeda wax weyn bay nooga qabanayaan. dhinac marka laga eegana waxa weey faa'iido badan bay leedahay oo meeshii hal baabuur aad ku soo iibsan lahayd 6 milyan ilaa 6 milyan ee badla 7 milyan ayaa hadda marka hal meel lagu soo iibsado dawladda dhaxana cashuur dhaaf laga codsaday iyo kambaniga toos looga soo iibsaday halkii baabuur 4 baabuur buu noo gooyay. marka waxa weey waa dhammaanba muxuu hay'adihii baahidii ay qabeen haddii dhowr jeer sano kale la isku daro lacagta oo dawladana cashuur dhaaf la weydiiyo kambaniga toos looga dalbado waxay ka caawin doontaa in xafiisyadu ka baxaan baahidii dhibaatada gaadiidka haysatay iyadoo qiimo jaban lagu soo iibsado lacagtana la ilaaliyo value-ga ay leedahay. waana condition ugu horey marka wax la iibsanayo in la ilaaliyo value-ga lacagta. marka hadda lacagtii aan haysanay waxay noo goysay baabuurkiiba 4 baabuur inuu dhigantay noo soo goysay. dawladdu waxay ka jawaabtaan oranaynaa baahidii ballaadhnayd ee deegaanka ka taagnayd gaari la'aanta. markaas taas oo bulshada maaragtay wax badan ka taraysa si loo gaaro bulshada baahideeda loo gaaro degmooyinka gobolada ilaa qabala hoosaadka si loo gaari lahaa ee baahidooda loo tiri lahaa gawaari bay ku xidhan tahay deegaankuna kulli aad buu u ballaaran yahay. saa darteed marka dawladdu waxay ka jawaabtaan oranaynaa baahidii aan u qabnay ay inooga jawaabtay ayna siisay gaariga hartoobka ah waan ku faraxsanahay.